Ra'iisul Wasaare hore dalka Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay dhawaan ku gaadheen magaalada Addis Ababa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland uu hogaamiyo Axmed Madoobe. Heshiiska Jubbaland iyo dowladda ay gaareen horta waxaan u arkaa mid taariikhi ah sababtoo ah waa saldhigga nidaamka federaalka ah oo ku hirgelaya dowladdan hoosteeda walow waxyaabo badan oo dastuuri ah laga hor istaagay haddana talaab fiican baan u arkaa ummadda Jubbaland degan saddexda gobol degan muddo badan bay u naaloonayeen inay helaan maamul ay leeyihiin oo iyagu dhisteen waxyaabaha aan rabo inaan ummadda xasuusiyo waxa kamid ah madaxweynaha mar baan ka dhageysan isagoo dhahaya dastuurku wuxuu leeyahay laba gobol iyo wixii ka badan ma dhihin laba beelood iyo wixii ka badan taas anigu jahawareer baan u arkaa sideedana maamul dad baa dhisay dhul ma dhiso marka in la yiraahdo laba gobol laba dhul iyo wixii ka badan in madaxweynuhu dadka ugu fasiro khatar weey arintaasu Cali Maxamed Geedi oo wareysi gaar ah TV-ga caalamiga Honkebel ayaa dhanka kalena ka hadlay shirweynaha qaran ee lagu soo gabagabiyay caasimadda dalka Soomaaliya shirka Muqdisho hadda magacyada shirweyne qaran lagu leeyahay marna lagu leeyahay shirweynihii looga hadlayay political process-ka ilaa 2016 iyo mar la leeyahay new deal-ka looga hadlayay anigu magaciisa ma garan karo laakiin waxaan hubaa hadduu shirweyne qaran ahayna inaan loo abaabulin si shirweyne qaran usbuuc ama 10 biri ka badan hawada kuma jirin shirweyne qaran ee bulsho waxaan xasuustaa 2007 shirweynihii dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed ee Muqdisho ka dhacay 4 bilood baan qaban qaabinayn muxuu ahay Cali Mahdi Maxamed madaxweynihii hore ayaan gudoomiye uga dhignay dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo magaalada la keenay iyo dalka dibadiisa 3,000 buugi ka soo baxay cidii dib u heshiisiin Soomaaliyeed u baahan oo akhrisan karaan Ra'iisul Wasaare hore dowladda federaalka ku meel gaarkeeda Cali Maxamed Geedi ayaa sidoo kalena ka warbixiyay xaaladda ammaan ee dalka Soomaaliya waxaanu xusay in ammaanka Soomaaliya uu haatan yahay mid aan la isku haleyn karin waxaanu tusaale ahaan u soo qaatay safarkii madaxweynaha Soomaaliya uu dhawaan ku tagay magaalada Markay gobolka Shabeellada Hoose xilligaas oo la sheegay in la weeraray madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo arintaas ay dowladdu beenisay dalka ammaan darra ka jirta guud ahaan gaar ahaan caasimadda waxba yaan dadka been loo sheegin yaan la dhihin dalka nabada ka jirtay kaalay ummadda dadka niyadda in laga jibiyo lama rabo waan ka xumahay anigu in maalin walba dhibaatooyin ka dhacayaan oo qaraxyo iyo dilal qorsheysan iyo dadka ay baaba'san yihiin waxa ugu dambeysay madaxweynaha isagoo safar u socda khatar la geliyay oo ku khasabtay inuu helicopter ka qaato Markay oo ku tago Muqdisho oo jidkii ku noqon waayo hadaad warsatay hay'adihiisa amniga nimanka madaxda ka ahna waxay ku leeyihiin waa amnigu waa sugan yahay Cabdi Ibrahim Ali Honkebel TV Nairobi